Asalaamu calaykum asxaabteyda isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo walaashay Nasra Abtidoon markii ugu horeysay channelkayga ka maqnaa 3 bilood waaye ilaaha maad iskale dib iigu soo celiyay muuqaaladana idiin soo gudbin doono xilli horaan duubay laakiin ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta idiin soo gaaraan muuqaalkan wuxuu ahaa xilligii xaajigayga oo Istanbul yimid markii uu baxayay insha Allah inaad ka wada heli doontiin rajeynayaa please hadaa channelka ka cusub tahay subscribe noo saar 800 oo kuna rabnaa mar dhow inaan gaarno insha Allah muuqaalka halkaan uu nooga bilaabanaya waxaa mid kamid ah hoteelada ugu quruxda badan Istanbul hoteelkan waana lagu casuumay marka idin dhahay reservation aan loo sameeyay waana loo soo diray anigii iyo xaajigayga sidaas aan ku imaanay maalintaana waxay ahayd maalintiisa ugu dambeysay run ahaantii hoteelkan aad u qurux badnaa waliba wuxuu ahaa hotel qurux markii laga soo tago view aad u qurux badan leh gudihiisa yani markii laga soo tago quruxda ee xitaa banaankiisa sidaas uu ahaa viewgiisa badda ayuu saarnaa runtii inaba caadi ma ahayn aniga hore hadda ka hor mar u degay laakiin kaliya ahaa markaas laakiin maanta ilaahay wuxuu qadaray inaan xaajigayga isla imaano wuxuuna lahaa aad iisii cajabiyay musqushiisa baathka oo maxaa la dhihi jiray lagu qubeysto biyaha haduu ku furay baathka waxaa rabaa wax yar decoration yar inaan u sameeyo ama aan qurxiyo waa itqaanin ani waxaa jeclahay decorationka waxyaaba yani wax walba aan qurxiyo jeclahay flowerki markuu xaajigay imaanay soo dhaweynta aan soo iibsaday maanan daadinin baca iskaga shubto meel iska dhig waxa iska dhig maalin uu ku anfici doonaaye xitaa shumacyadii maanan tuurin waa iska heystay maalintan markaa soo aadayna hoteelka waxaas dhaaway ku anfici karaan maybe na wax ku sharaxatida iska qaado waa soo qaatay ay kuris markaa taasas waa xaalka wax dhan markaa dhumayaan and then baathki rabaa hadirtaan wax yar decor yar inaan u sameeyo waa ka xumaay muuqaalkan inuu idinka soo daahay laakiin dadka snapchat-ka igala socdo way ogyihiin xilliga muuqaalkan aan duubay iyo xilliga uu ahaa laakiin team YouTube waxaa waaye waa ogahay aad ay cambaareynaysan laakiin ilaahay culeyska iga qaado waa jeclaa anigaba inaan update ahaado channelkaygana aan maxaa la dhihi jiray waqti walba wax soo geliyo laakiin ilaahay unbaa og xaalada jirto iyo culeyska isaaran ma fahamteen marka decor yara u sameynaya biyihi waxaa ku shubay ubaxii aan waday ubax yaroo gaduudan uu ahaa oo maxaa la dhihi jiray isla markii biyaha dhan way isbedeli doonaan xaajiga wuxuu ku jiray qolka ana suuliga qurxinaya markaan wax dhahay wax yar oo surprise qurux badan uga dhig shumac yar ku shishiday baathka kadibna sidaas uu kusoo baxay dhulkana cagasaar yar taalo cad ubaxa sirka saaray iyo shumacaasha afarta xaba geesaha ka soo saaray adi wax yar oo kiyad oo qurux badan iska noqdeen oo ogaay faraxayaasha qaarkood waxa markay arkaan way xanaaqayaan wax iska soo jarayaan maxaa la dhihi jiray xaliimo maxaa waaye in 9 musqul iyo wax la qurxinaysa ninka u qalmo in wax loo qurxiyo waa loo qurxinaa brother adi hadaa noqotid nin fiican oo xaaskiis u fiican xaaskaaga adigana way ku hagar bixaysaa ma fahamtay midda kale labada maalin waxaa maqmaqlooyaa Morocco la aadooyaa ani mago Morocco ma liga aadayo naagsan romantic ee Morocco ma laga aadi karo ogtiin moo idinka waa iska gaftamaya intaasna asxaabay maxaa la dhihi jiray saana ku soo baxday musqushi ama suuligi markaa soo qurxiyay ayada dhan waa kan kaamirada markaa ku wada qabtay sidaas maxaa la dhihi jiray noqotay shumacaashi wixii dhan markaa ku shiday yani wax yar oo iska qurux badan oo indhaha u roon waa ma fahanteen inkastoo biyahan hadirtaan just quruxdaas leh indhaha in lagu nuursado oo jabi romantic laga dhigale yani ee ku nuuraysaa ma fahanteen hadhowtiin biyaha waa ka bedeli doonaa maadaama maxaa la dhihi jiray bahalkii ubaxa kalarkiisa dhan uu ku baxay warii dhamaantiis markaas kasoo dhamaaday kadib baahiyaan heysay menuga soo qaatay hoteelka magaciisa waa kaasaa kor uga qoran yahay Otaberlo hotel la dhahaa waliba ku darso hoteelkan Soomaaliya iska leh aada uu farxay yani horena waa idinkugu soo gudbiyay had koor saa jeclahay menuga soo qaatay cunta raba inaa dalbado reception ka wacaya markaan وبعدين انت cuntada iyo waxaasna loo keenayo laptopka la soo kala baxay wax yar waxaa rabaa shumac yar inaa iska shidano shumacyaasha kuwa carfe
oo aan xaafada kasoo qaatay ii yaalay. Ani markaa movie daawanayo waxaa jeclahay inaa cunto ii ag taalo ama macmacaan ii ag yaalo. Waxaa kaloo jeclahay shumac carfaayana inuu ii shidan yahay. So anii xaajiga meeshaan aan movie yar iskaga daawaneynaa, cuntadina waa ku suganeynaa cabaar intii cuntada maqan tahay. Cuntadii markaan way noo imaatay waana loo keenay, movie-gana dhexuu noo marooyaa. Kadib waa cunteyneyna, waa kaasaa cuntadii halkaasi saaran tahay inay idin muuqataa rajeynayaa. Kaamirada wax yar kadib waa ka arki doontiin meeshas kuraas taalo ee cuntada saaran tahay, cuntadii aad dalbanay. Marka cuntadii inay naga qabowdo ma rabi, waxaa waaye waa kacina cuntadeena cuneynaa anagoo movie-geena iska daawaneyno, fahanteen. Maadaama last night ee tahay uu Istanbul xaajiga joogo, waxaa waaye xasuus qurux badan iyo jawi qurux badan maxaa la dhihi jiray in la geliyo. That's why aan shumaca ugu shiday, maxaa la dhihi jiray maadaama meel qurux badan aan joogno oo indhaha u roon. And then cashada aad dalbano waatana waxay ahayd burger iyo waxay ahayd shawarma, sidoo kale macmacaan aan raacsanay. Maasha Allah, ilaahay khayr ha siiyo qofka reservation-ka noo sameeyay oo nagu casuumay halkan, xitaa cuntadeena free noo ahayd uu noo sameeyay, fahanteen. Marka cuntada hoteelka ka cunaysid, hoteelka lacagtiisa wixiisa dhan yacni asagaa qabay, qofkaasaa qabay. Marka dee waa kaasaa jawiga saasuu iska ahaa. Kadib xiligan waxay noqotay hadda subax, habeenkii saasay kusoo dhamaatay qeybtii habeenka. Markaan subaxay noqotay sida caadiga ahna quraacda waxaa ku lahayn hoteelka. Kadib hoosa usoo degnay, quraac Turkish ay ahayd. Kadibna quraacdeeniya iska soo gurguranay, kafee iyo shaah wixii caabi lahayn soo qaadanay, meeshaan ku quraacaneynaa. Hoteelka maanan wada duubin, dad badanaa meesha ka quraacanayeen, xoogaa way la xumaatay inaad dadka kaamirada ku qabto, laakiin meesha lagu quraacana laftigeeda meel jawi degan oo aad u qurux badan, badi kor aad ka arkaysid oo inaba caadi ahayn ahayd. Aniga hoteelkan dhinac walba waa ka qaatay, waxaa waaye review-ga markaa ka bixinayna 5 star-kiisa waa siiyay, ma fahanteen. And then markaa soo quraacanay waxaa kusoo noqonay qolkii dib ugu soo noqonay. Qolkii markaa dib ugu soo noqonay waxaa soo dhawaaday xilligii check out-ka. Alaabaheena iska diyaarsaneynaa, waa la labisanay. Waxaa waaye inaa baxno sababtoo xaajiga maanta safar waaye, waa inaa guriga tagno. Boorsooyinkiisa iyo alaabihiisa wixiisa dhan usoo xirxiray, ma fahamteen. Mida kale markuu imaanaya daa xasuusatiin boorso gareey oo qurux badan uu watay. Ani waa qabtay boorsada quruxleedeeda waa ka reebto, waxaa dhahay xaaji dumarka xaragoodaane anigaa qaadanaya midaane adigu waan ku bax waa ka bedeshtay. Caqligaas ma aragtay weligiin. Marka gabdhaha ayay ku risksaas u caqli badan yihiin, isku ogaada. Kadib taksiyaa soo qabsanay, boorsooyin alaabtii wixii dhan soo saarnay. Markaana waxaa kusii wajahanahay Istanbul airport oo uu ka bixi rabo caawo xaajiga, halkaas oo safar ka yahay. Kadibna uu aadi doono Muqdisho oo markii horeba ka imaaday. Sababtoo ah hal bil fasax oo shaqadiisa lahaa, bishaasuuna Istanbul u yimid in sanad guuradii 10aad ee arooskeena aan Istanbul ku qaadano. Runtii waxay ahayd bil cajiib ah oo qurux badan, meelo kala duwan oo xitaa aan weligii hore u tagay oo Istanbul oo kamid u dalxiisnay. Jasiiradiya kamid ahayd, muuqaalada hore kusoo daawateen dabcan. Xitaa meelo hore u tagay ani xaajiga isla tagnay dabcan. Marka qofka aad jecleed lamaanahaaga aad la tagtid meel goob dalxiis hore u jeclaan jirtay, yacni way ka qurux badan tahay meel aad kaligaa booqatay. Marka xasuuso qurux badan inoo ahayd, maasha Allah, si qurux badan bisheen noogu soo dhamaatay, Ilaahay noo barakeeyo. Hadirtaan airport-ka usoo dhawaanay. Aniga just waa dhaweynayaa, qofka safraayo waa asaga, ani ma baxaay. Laakiin maalmo kadib ani waa bixi doonaa, waxaana aadi doonaa Kampala iyo dhinacaas insha Allah. Waa arki doontiin koley. Hadda waa kasoo degnay tagsigii, airport-kaasii geli rabnaa. Boorsadan yarta gacanta ku hayay gareyda tayada weyneed waa wuxuu markii hore la imaaday oo aniga aan ka reebta labadaas soo siiyay oo dulofyaasha way jajabnaayeen, yacni way duqoobeen saa hore iyo gadaal uu soo wada safar uu galay 9-ka. Aan waa ogtiin inaan iska safar badanahay. Adi almuhiim airport-ka gudihiisaasii galownaa. Ani waxaa rabaa ilaa qeybta oo control passport-ka ama passport control-ka inaa la tago. Meeshaas kadib lama dhaafi karo, meeshaasaa ku macsalaameynaya, jeekinka iyo waxaasaa lasii maraa. Kadibna waxaa waaye ilaa qeybta ugu dambeysa halkaasaa la tegi doonaa.
ilaa inta muuqaalka hada soo gaartay waa ku mahadcelinayaa. Please like ii saar ha iiga ilaawin. Muuqaalkan saa idinkugu sheegay xilli horaa duubay muuqaalo badan oo haayeen way jiraan ayagana waa idiin soo gelin doonaa insha Allah waana mahadsantihiin.